السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ولا لي سو دواده جمعة wanaagsan. maanta muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa afar shaqo dhaqaale badan ku heli kartid sidoo kale aan kaaga baahnayn inaad wax barasho jaamacadeed u gashid. shaqooyinkan ayaa waxaad ku qaadan kartaa tababaro kala duwan adigoo helaya shahaadooyinka ay markaa kala leeyihiin haday noqoto liisan iyo haday noqoto maxay ahayd shahaadada markaa loogu talagalayba. dabcan say ka wada warhayno dad badan ayaan chance soo hayn inay dhowr sano jaamacada ku dhameeyaan. dadka qaar ayaa waxay jecel yihiin farsamada gacanta ama sayna koora sameeyaan ka bacdina ay ku hawlgalaan. maanta halkan waxaan ku soo gudbinayaa afar shaqo oo aan isleeyahay markaan suuqa dhaqaalaha arkay mushahar badan caalamka lagaga helo balse aan si gaar ah u soo xushay in hadda wadankiina looga baahan yahay oo ay noqon doonto baahi mustaqbalka dhow aad u jiri doonta ama suuq shaqooyinkaas ay ka banaan doonaan fursado. shaqada koowaad walaalayaal hadeen soo xullo waxa weeyaan shahaado jaamacadeed aadan u baahnayn sidoo kalena aad maaliyad culus ku heli kartid waa pilotnimada. commercial pilot waxa loo yaqaano. commercial pilot walaalayaal waxa weeye qofku markuu rabo inuu noqdo pilot waa in uu soo qaataa shahaado ama license waa inuu liisan helaa uu ku kaxeeyo diyaaradaha noocyadooda kala duwan. shahaadooyinkaasi badi labo ayay kala baxaan maxay ahayday mid la dhaho private pilot oo ah yani PPL license oo ah private pilot license oo loogu talagalay qofka raba inuu kaxeeyo diyaaradaha dadka si ka soo qaad private ka ah ee lacagta leh oo kale ama hay'adaha oo kale ama sida kuwa UN to kale. shahaado noocaas ayuu qofkaasi diyaarinaya oo license noocaas oo PPL ayuu sameynaya. mid kale wuxuu sameynayaa CPL ama commercial pilot license waxa loo yaqaano oo ah 250 saacadood ama 150 saacadood ilaa 1500 saacadood oo hawada lagu jirayo oo kala duwan. shahaadadan aad qaadanaysaa ama license-kan pilotnimadu waxa weeye waxay ku suurta gelinaysaa inaad maartay muddo kooban oo qaarkood 4 bilood ilaa 7 bilood inta u dhaxeeya aad ku qaadatid iskuulada ama akademiyada lagu dhigo sida aviation schools oo ka kala jira wadamo badan oo Afrika iyo caalamkaba ku yaala oo ku siinaya license aad ku wadi kartid diyaaradaha noocyadooda kala duwan. dabcan shaqadani waxay mushaharkeeda lagu bilaabaa dhaqaale 80,000 ilaa 90,000 oo dollar dhexdhexaad bay qaataan baylowdadu. waxa weeye waxa la qiyaasayaa sida shirkadda Powell ay qiyaastay in ilaa 5 sano soo socota 500,000 ilaa 450,000 oo pilot caalamku uu yeelan doona mise looga baahan yahay. marka waxaad ku arkaysaa in suuqa baahi weyn ka jirto xagga pilotnimada ayna kordhiso dadka loo soo dalbanayo shaqaalanimada pilotnimada. marka waxaan rabaa inaan halka macluumaad muhiim ah ku baraarujiyo dalal badan waxaa jira lacag badan siiya dadka pilotado kale wadanka Qatar 230,000 oo dollar 220,000 oo dollar ayaa diyaaradaheeda pilotada la siiyaa. dalal kale oo ka sida Canada iyo Shiinaha iyo Jarmalka iyo Francisco kale kaba si fiican 250 ilaa Shiinaha ugu qaalisan 300,000 oo dollar ayuu pilotku sanadkii qaataa annual wage-kiisu yahay. marka waxaa jirta wadamada hadda deriskeena oo kale waxa ugu dhow Ethiopia oo kale oo Abyssinian Aviation Academy ama yani school lagu barto pilotnimada ayaa halka ka banaan oo qofka international ka waxa uu soo dalban karo kaliya shuruudo ayaa laga baahan yahay inaad buuxisid sida inaad caafimaadkaagu wanaagsan yahay inaad maartay qoraalkaaga iyo wax akhrintaada iyo xisaabaadkaagu ay fiican yihiin in aragtidaada ama indhahaagu ay caafimaad qabaan. shuruudo kooban baad buuxinaysaa sida aan ka arkay website-kooda. marka ka bacdi markaad application-kaaga dalbatida schoolka aad ka soo baxdid waxa yani lagu tababarayaa inaad diyaaradda marka diyaaradda macmala lagu fadhiisiyo oo marka ka bacdi lagu barto diyaaradda iyo qalabkeeda iyo waxyaalaheeda ka bacdina aad sii gudubtina hawada aad u gashid. qaarkood 3-4 bilood baa lagu dhameeyaa sida kuwa private license ka qaarkood waxa lagu dhameeyaa 7 bilood. marka pilotnimadu waa shaqo lacag badan lagu helo aadan shahaado jaamacadeedna kaaga baahnayn dhaqaale badan aad ku sameyn kartid. waa qodobka koowaad. shaqada labaad ee walaalayaal halkan ku soo gudbinayno waxa weeye lift engineering wax loo yaqaano oo ah qolalka aad aragteen dabaqyada marka la joogo ama suuqyada caalamka oo kale marka la joogo inaad meel badan ku aragteen oo kala duwan dhismayaal qolalkan kor ku qaadaya ee wiishashka ah Soomaalidu qaar wiish
lift qolka maartay sare kor loogu aado loo yaqaana lift engineering waxa weeye waa isna kaagama baahna inaad shahaado jaamacadeed u gashid waxaas leeyahay baahi badan ayaa dalkeena looga qabi doonaa waayo dhismayaasha aadka ugu dhaadheer ayaa soo badanaya hoteelada la dhisayo isbitaalada la dhisayo goobaha kala duwan ay dowladuhu ay dhisayaan ayaa tiro fiican soo yeelanaya si aan wada socono goobahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dad maaragtay yani liftiyadooda manage gareeya ama se haday yani kaba soo qaad qof dad baa ku dhex jira liftiga ama se wiishka haddii uu markaa qof ku xumaado waxaa loo baahan yahay engineerda yani dadka ku dhex jira ka hagaajiyo oo kale ayaa loo baahan yahay marka lift and escalators ama se jaranjarooyinkan socda aad aragteen dabaqyada dhexdooda mara ama se airboardada mara iyo liftiyadaba qaab engineernimo ah oo loo qaata ayaa jirta oo koorsiyo ah kabacdi qofku markuu ku qalin jabiyo wuxuu helayaa shahaado buuxda oo wadan kasta caalamka kaga shaqeyn karo oo ku xidhi kara wiishashka markaa dhismayaasha galaya dadka badi noocaas waxay contractyo ka qaataan ama heshiisyo hay'adaha kale dowladaha kale ganacsatada dhismayaasha dhisayso oo kale si in la wada socono magaalooyin badan hadda waxa laga dhisayaa fooqaq 5 6 7 meelaha dabaq gaadhay oo si kor saaran dhamaanteed waxay la soconaa waxa soo dhan jaran jara kaliya lagu ma gaari kara lift ay u baahan yihiin marka injineero Soomaaliya oo rakibi kara baahida aad iyo aad baa loogu baahan yahay inta wadamo kale laga keenin lahaa shaqaalaheeda marka lift engineering ama se yani wiishashka engineernimada iyo escalatorka waa shaqo labaad oo lagu qiyaasay $70,000 ilaa $80,000 inuu qofku helo sanadkii guud ahaan marka shaqooyinkaas noocaas ku shaqeynayo shaqada saddexaad walaalayaal aan kaaga baahnay shahaado jaamacadeed iyadoo dhaqaale badan leh haddana maartaas leeyahay baahideedu way jiri doontaa dad cilmi u leh inay noo soo baxaan waa loo baahan yahay waxa weeye air traffic controller wax loo yaqaano air traffic controller ku walaalayaal waxa weeye maxay ahayd dadka raadaarada diyaaradda maamula intay sharaxidan u guda galin waxaan idinku baraarujin lahaa haddii muuqaalkan wax faa'iido ay kaaga kordhay fadlan inaad kanaalka like ku taageertay sababtoo ah waxay ka caawisaa in muuqaalku dad badan YouTube-ka dhexdiisa uu sii gaaro intaana waa inta kaliya dad muuqaaladan wax cilmi iyo aqoon ka korosataad ka faa'iideed aad kanaalka maartay ku dirsan kartid faa'iido ahaan marka fadlan like saar sidoo kale subscribe marka walaalayaal shaqadan air controller-ku waxa weeye dad taawarada airboardada saaran oo markaa ka bacdina raadaara casriya haysta oo diyaaradda markaa imaanaysa hawada kula xidhiidhaya pilotka ka bacdina diyaaradda markaa u sheegaya meesha ay kusoo degi lahayd giriday tagi lahayd gatekay tagi lahayd halkay ku parking garayn lahayd jawiga markaa airportka ka jira iyo macluumaadka uu baahan yahay markaa pilotku dabcan shaqooyinkan air traffic controller-ku dhowr nooc bay kala leeyihiin qaar la xidhiidha diyaaradaha hawada ku sare ku jira dalka hawadiisa maamula oo diyaaradahaas la xidhiidha hadii wax maartay u baahan yihiin pilootadu inay la soo xidhiidhaan qaar maamula runway-ga amase goobta diyaaraduhu kusoo degaan oo kale oo gudaha airport-ka jooga qaar tower-ka saaran oo maartay sii baneeya amase qorsheeya meelaha diyaaradaha wadanka imaanaya kusoo degi lahaayeen marka air traffic controller waxa weeye waa shahaado waxaa dabcan NATS NATS shirkad la dhaho hay'ad la dhaho ayaa wadankan tababarta oo dadka soo saarta saan ka arkay shahaado dugsi sare ah mooyaane wax kale lagama baahna dadka qaarna hadayba helaan shirkado train gareyn kara oo wadamada kale qofku marka research sameeyo waxa weeye wax shahaado jaamacadeed lagama baahna waana shaqo $100,000 ilaa $80,000 sidoo kale ilaa $120,000 lagu helo airport kala duwan oo caalamka oo dhan ayaad ka hawlgeli kartaa taawaradooda airport kasta waxay la soconaa in magaalooyin badan maxay ahayd airportadii loo dhisayo ama si loo hagaajinayo ama infrastructure wadanku aad soo kobcayo sida daraadeed air traffic controller ama diyaaradahan domestic ah ee wadanka gudihiisa u kala gooshaya aad ka soo tira badanaya waxay u baahan yihiin dad cilmi u leh oo maamuli kara air traffic controller waa shaqada saddexaad dhaqaale badan oo caalamka dhan aad kaaga heli kartid shahaado jaamacadeedna aan kaaga baahnayn shaqada afraad ee ugu dambaysa walaalayaal waxa weeye waa logistics storage distribution manager ama se maareeye maamula qaybaha wax soo dejinta iyo kala qaybintooda iyo maxay ahayd distribution kooda kala gudbintooda
maareeyaashaasi badi waxay ka shaqeeyaan goobaha warehouse-yada ama bakhaarada ama kaydadka wax lagu soo dejiyo sida dekadaha oo kale, airportada oo kale, logisticada oo kale, waxyaalaha isu gudbinta oo kale. san hadda ii muuqanaysa waraysiyo kala duwan aan arkay dekadaha Xamar iyo Berbera oo kale iyo Boosaaso oo kale dhammaan waxaa ku socda inay xawlu iimaanayaan shirkada maraakiib badan sanad ka hor ama dhowr sano ka hor halka 2 markab ama 5 markab ay imaan jirtay dekadaha 10 markab ayaa yimaada ama 12 markab ayaa yimaada. waxaan la soconaa in ganacsiga uu korusii kordhayo in shirkado badan ay wax la soo degayaan. marka maareeyaha dekeduhu wuxuu qorsheeyaa ama maareeyaha logisticada wuxuu qorsheeyaa halkee containerkani ku degaya, halkaa loo banaynaya, imsu dekada kaga baxaya, shirkadee iskale, qofkee gudbinaya. waxaad kala nadaaminaysaa inaad waxa qalabka meesha yaala markaa aad yani maareysid. waana cilmi la barto, cilmigan maamulka iyo maareynta oo kaliya ku takhasusa waxyaalaha sida loo kala gudbiyo logisticada iyo qalabka lagu kala dhoofinayo wadamada kala duwan. shaqooyinka noocaas oo kale dadka qabta waxa weeye waxay qaataan ilaa iyaguna sidoo kale waa $92,000 dhexdhexaad ahaan ilaa $150,000 inta u dhaxaysa ay qaataan. dabcan markaad 10 shirkadood ama 50 markab sanadkii ama 200 oo markab waxa saaran aad nadaaminaysid oo kala maamulaysid wad dareemi kartaa xaddiga dhaqaale iyo mas'uuliyadeed ee hoostaada ka gudbaya. marka maareynta iyo wax kala gudbinta iyo nadaamintooda logistics managerka ama managing managerkaasi waa shaqo aan iyaduna jaamacad kaaga baahnayn. aad dalka dibadiisa ugu diri kartid ilmaha hadduu soo baranayo arrimahan oo kale, xisaabaadka oo kale uu ku fiican yahay. waa shaqo aad iyo aad maartay cilmi badan ku jiro wax laga faa'iidi karo. marka walaalayaal waxaan soo gudbin lahaa shaqooyinkan haddaad haysataan dhalinyaro ama dad aad maartay markaad jeceshahay waqti xaadirkan wax ku soo bartaan kuna howlgalan waa meel aad u dirsan kartid weeye oo tababaro ay soo qaadan karaan. maxay ahayd wadamo badan ay kaga heli karaan shaqo markay shahaadooyinka iyo tababarkooda soo dhameystaan shaqooyin. marka insha Allah intay maxay ahayd muuqaalka ku xiga aynu u gudbin fadlan ha ilaawin inaad kanaalka subscribe saartid. waxay muuqata dad badan oo muuqaalada daawada balse aan subscribe saarnayn sida aan ka helay xogta YouTube. marka fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid. insha Allah muuqaalka ku xiga oo in ka warbixin doono ganacsiyo aad qofku gaar u bilaabi karo wadanka gudihiisa ka bilaabi karo ayaa inoogu xigi doona. fadlan u dir dhalinyarada ama dadka jeceshahay inay ka faa'iideystaan oo jecel inay korosyadan ku kordhiyaan cilmigooda. sidaa iyo muuqaalkan ku xiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.